sanadkii 2015 ayaa uu guuray dalka Belgium waxaana uu shaqada ka bilaabay shaqooyinka ugu adag ee lagu shaqeeyo. magacaygu waa Warsame Bade waxaan meedhi jiray weelasha waxaan kici jiray 5 subaxnimo si aan shaqada u tago 7 subaxnimo balse sanada kadib waxa si yar isu bedeshay noloshiisii kadib markii uu qaatay go'aankan. maanta waa maalin taariikh leh maalintii soo dhameeyay shaqadii article assistant insha Allah mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaan public speaker noqdo insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa skillska xirfadaha inaan siiyo waxa kale oo Allah musta'aan ku tala jiray inaan ganacsi bilaabo inaan bila aadan daba u shaqeeyo min ilaahay ka rajaynayaa maanta waa maalin aad igu farxad badan waa maalin next level of my life aan korayo. su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa ku kalifay Warsame go'aankan gumaysid badan iyo dhibaatooyin badan oo shaqada iga soo wajahay waxaan go'aan ku gaaray inaan bilaadan u shaqeyn mawduucan shaqada marka la yiraahdo shaqadu waa arin saameyn aad iyo aad u weyn ugu leh dhammaanteen waxaynu leenahay riyooyin waxaynu leenahay didiilooyin waxaynu rabnaa inaynu waxyaabo fiican nolosha ka gaadhno waxaynu rabnaa inaynu adduunka aragno waxaynu rabnaa inaynu aynaan waxba aynan related nagu noqon 2020 baa la soo gaaray anigoo gaarigayga ku shaqaysanaya waxaan fahmay Facebook marketplace sida wax loogu iibiyo iyo e-commerce-ga Facebook marketplace markaan fahmay waxaan sii fahmay arkay nin dhalinyaro oo ka sheekeynaya inuu ka sameeyay $1 million sales oo e-commerce ka sameeyay yarkii waan follow gareeyay course soo sameeyay kursidiisii baan qaatay wax ka soo sheegay waan raacay waxa ay fududaatay inaan fahmo e-commerce industry maanta sida u shaqeyso maanta qof kasta oo dunida joogayna uu ogyahay awoodda internet ku leeyahay maanta uu ogyahay shirkadaha ugu awoodda badan inay Amazon tahay waa e-commerce inay Alibaba shirkadaha ugu waaweyn Facebook dhammaan shirkadaha ugu waaweyn waa shirkadaha e-commerce ku jira. sanadadii u dambeeyay guud ahaan caalamka shaqooyinka internetka ayaa ah kuwa si xawli ah u socda tanna waa mid ka mid ah sababaha guusha Warsame. ayuuba internetka nolosheeda uu bedelay ilaa xad aan oran karayo maanta wax badan buu aniga ii yahay e-commerce saaxiib maanta dad badan waxa jira lacag sameeya laakiin aan safri kareyn aan dunida u banbixi kareyn aan sameyn kareyn waxay rabaan marka internetku taas buu bedelo walaal maanta anigoo xagan kula jooga Turkiga ayaan wax ka iibinaya qof Mareykan jooga anigoo maanta xagan Turkiga kula jooga ayaan ka iibiyaa dad gaaraya 78 wada gaarayaan wax ka iibiyaa productyadeeda ka iibiyaa haday digital productkayga noqoto iyo haday physical productkayga noqoto walaal. Warsame waxa uu haatan waqtigiisa u badan geliyaa shaqada dhanka online-ka gaar ahaan e-commerce oo ah iibka alaabaha ee internetka dhexdiisa. imika waxa uu xor yahay Warsame noloshiisa isagoo ka faa'iideystay ganacsiga internetka ee e-commerce. Warsame ayaa la wadaaga dhalinyarada casharada noloshiisa bedelay iyo sheekooyinkii guushiisa. ugu dambeyn Warsame waxa uu aasaasay macadka Faca Korea oo ah dhanka online-ka si uu uga faa'iideeyo dhalinyarada Soomaalida ah ee aan helin fursadiisa oo kale. hamiga Warsame ayaa ah inuu noqdo Soomaaliga ugu horeeya ee mara caalamka oo dhan isagoo haatan tagaa 30 dal. horaantii sanadkan 2022 koox dhalinyaro ah oo Warsame hormuud u yahay ayaa dalka Belgiumka waxa ay ku qabteen shirkii u horeeyay ee noociisa oo kale ah isagoo loogu magac daray Somali Online Business si loogu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaalida ah ganacsiga internetka. muhiimadda muuqaalkan ayaa ah daawaday in ganacsiga online-ka ee caalamku uu yahay mid si xawli ah u koraya noloshaadana si dhib yar u bedeli kara. asxaabta way dhiirigelisay sheekadani idinkana waan hubaa inay dhiirigelin doonto. Warsame aad baad ma santay ayuu